sanadihii 60meeyadii dowladda Jarmalka ayaa magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ka hirgelisay iskuulka farsamada gacanta ee loo yaqaan Jarmalka iyadoo ay ka soo baxeen arday tiro badan oo leh xirfad heer sareysa oo farsamada gacanta ah. Iskuulka ayaa burbur lixaad la soo gaadhay xilligii dagaaladu ka socdeen Soomaaliya sanadihii 90-aadkii. Mar kale dib ayaa loo hagaajiyay fasalladii wax lagu dhigan jiray iyadoo haatan ay dhigtaan arday ka badan 100 qof. Warar hoose ayaa sheegaya in xukuumadda madaxweyne Biixi ay ka hor istaagtay hay'adda GIZ oo doonaysay inay dib u dhis ku sameysay iskuulkani farsamada gacanta, waxaana xukuumaddu cadaadis ku saartay hay'adda in mashruucani oo lacag badan ay ku baxayso ay u wareejiso Hargeysa. Arrintani waxaa ka hadlayay gudoomiyaha xuquuqul insaanka xisbiga wadani heer qaran Maxamed Cali Soodi, waa kan isagoo ka hadlaya arrinkaasi. jiray iskuul farsamo gacmeed oo la oran jiray Jarmalka oo kooli jiray magaalada Burco oo barihii u dambeysay dhowrkii sano u dambeeyay la yar dhabdhabay oo kolba ama hay'ad loo helo ama guddi gobol iska xir saarto ama shakhsiyaade gacanta lagu hayay oo kolba qol la dhisayay. iskuulka waxa la aasaasay 1964 meelahaas la aasaasay, wuxuu ka mid ahaa iskuuladii ugu tayada wanaagsanaa ee berigii Soomaaliya la oran jiray. run ahaantii iskuulka imika waxa gacan ka geystay hawshiisa ku jiray European Unionka oo ay ku jirto uu ku jiro Jarmalka. lacag dhan ilaa 13 milyan ayaa gacanta lagu hayay isaga iskuulkan iyo iskuul ku yaala Hargeysa oo laba iskuul oo quality leeyihiin oo ah labadaba farsamada gacanta. run ahaantiina farsamada gacantu waxa weyn ognahay waa shaqo abuur aad iyo aad u weyn. in badan baa iskuulo kala jiraan laakiin tayadoodu iyo tarantoodu aanay isku mid ahayn. iskuulkaas 13 milyan baa akoonka ugu jiray akoonka hay'adda GIZ-ka. dawladda cusub ee Muuse markii horena iyana way ballan qaaday. Muuse markii madaxweynuhu gobolka Togdheer yimina waxa kala hadlay guddida gacanta ku haysa iskuulka waanu ballan qaaday inuu dhisayo. Faysal Cali Waraabe isna maruu ka hadlayay wuxuu yiri iskuulka Hargeysa la dhiso. marka imka wararka soo baxaya waxa weeye in iskuulkii Burco intaas oo dhan arrinkiisa lagu jiray ee dawladihii kala dambeeyay ballan qaadeen ee lacagtiisa akoonada ay ku jirto in meel kale laga dhisayaba. wararka soo baxaya waxay sheegayaan madaxweynuhu markii uu yimi Berbera inuu u ballan qaaday iskuul farsamo gacaneed inuu dhiso. run ahaantii inagoo og iskuuladii hore ay iyaga kharaabadayihiin oo ay jira imika oo soo baxaya in kii Burcaba inta la iska daayay iskuulkii Burcaba la geeyay iskuul ka Hargeysa kaliya la dhisayo. taasuna waxay u muuqataa in gobolada bari ay Burca ka mid tahay in aan cidi dan weyn u haynin oo aan la dareenayn. dadku in badan waxay sheegayaan xukuumadan hadda jirta ma soo dhaafsana Buurta Sheekh iyo Berberaba wixii xaga ka xiga weey. hadday taas suurto gasho oo ay dhab noqoto waxaan filayaa wixii la sheegay in gobolada bari inaan cidina u baahnayn. Shucayb Xasan Cismaan, Shucayb Kingish, Kalsan TV, gudaha magaalada Burco.